ardaynimada iyo faqrigu way wada socdaan. dhallinyaraduna inta badan waxay sidhaahdaan bar horta sanadku yaro tuur shaqo oo yaro xoogso dabeetana mushaharkaasunbaa la macaanaado halkaasunbuu ka wadaa hadhowna 5 ciyaalunbuu dhalaayo wuxuu isidhaahdaa war jaamacadna ku noqon kari mayside iska xoogso oo sii wad buu isidhaahdaa. waar inaad sanad iyo 2 iyo 3 faqri ku noolaatid iyo inaad noloshoo dhan xamaal iyo faqri ku dhammayso iyoma roon. inaad noloshoo dhan xamaal ku dhammaysid iyo inaad ku tala gasho sanad iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ba inaad waxbaratid laakiin aad hadhow mustawa fiican ka bilowdid. dhallinyarada waxaan leeyahay faqrigu akhlaaqdiina iyo diintiina ayuu xumaynin. dhallinyarada bar baa markay faqriday tuuga u dhaqaaqay. dhallinyarada bar baa markay faqriday suuqa madow u dhaqaaqay. dhallinyarada bar baa markay faqriday mukhadaraad iyo balya baas u dhaqaaqay oo quick money war lacag degdega xaggee laga helaa bay tijaabiyeen. dee waxaa laga heli karaa daroogo iyo suuqa taana maalmaha hore la soo jiidanayo maalintii 3,000 4,000 soo hel bishii horeba 150,000 buu helay waa ku soo waday aakhirka xabsigaad ku dambaynuun. tuug wuxuu maanta qaado berri qaado la qabay unbaa xigi isfahankaa maaha. daa tuugada wadda uun maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 100 markaad baxsataba aakhirka waa lagu qabanayaa uun la qabay baa xigi doontaa. waxaan uga dan leeyahay war suuq madoobi maaha wax la galo, darooga wax la iibiye maaha, tuuga wax la sameeya maaha, qof identity la noqo. soomaalidii hore waxay ku mahmaahi jirtay waad baahatay looma bahala cuna bay odhan jireen. baaha ay hayso dabeetana wax walba waan iska cunayaa maaha caqligal bay odhan jireen. waanu baahano waxba waa weyna suuqaanu iska gelaynaa waxaanu doonaa baanu samaynaynaa noloshu saa maaha. waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dullinimada ka baxno. madalla weeyaan inaad mukhadaraad iyo suuq madow iyo maxaa la ydhahaa tuuga iyo waxaan dhaamin inaad ka shaqayso. ilaahay qolu qur-aanka ku tilmaamay yaxsabuhum اljaahilu aghniyaaa min atacafuf. qole la yidhi haniyadu waxay moodayaan dad wax haystaa siday u dhowrsoon yihiin daraaddood. ayuha alaxiba waxaan idin leeyahay dhallinyaroy 3 challenge baa taagan meesha tan inaad wax noqotaan. ka koowaad waa khatar oo diintiinu khatar ku yihi. ka labaadna akhlaaqdiinu khatar ku yihi. ka saddexaadna dhaqaalihiina iyo mustaqbalkiinu khatar ku yihi. 3daba haddaad ragtiin waa ka bixi kartaan. haddaad tale iyo go-aan iyo ilaahay oo aad tala saarataan yeelataan 3daba waa ka bixi kartaan. haddaad rabtaan adduunkan inaad markaa wax ku noqotaan facalaykum bilcilm. haddaad rabtaan aakhire inaad wax noqotaanna facalaykum bilcilm. labada goorba waa cilmi laakiin cilmigii halkan yaalay dhibaatadaasaa la socota. dhibaatadaana waxaad u baahantahay inaad challenge garayso oo qof diin iyo akhlaaqla aad noqoto. waalidkana waxaan leenahay war dhallinyarada dhibtaasaa hortaagan. maadaama dhibta intaa leeg ay hortaagan tahay isku day aqoonta inaad u fudaydin karto dayntan iyo waxaan ka daysi oo guriga joogo oo wax ka cuno. isku day inaad dhistid oo aanad meeshaa uun geynina inuu diintiisa iyo caqiidadiisa bari kartid. isku day baynu leenahay haddii loo guurin karo wiil iyo gabadhba in loo guuriyo. isku day baynu leenahay in laga ilaaliyo dadka xunxun iyo suuqa mukhadaraadka iyo beliya baaskan in laga ilaaliyo. idan challengeskaasa hortiina yaalla haddaad waalid tahay iyo haddaad nin dhallinyaro a tahay labadiinaba. wuxuun baynu kaga bixi karnaa markaa iyadaa ilaahay ku xidhanno oo cibaadada laasimno oo ka mid noqonno kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam 7 aakhiro carshuraxmaanka hadhsan doona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro oo cibaado ku koray. ama uu nebigu lahaa ilaahay wuxuu la yaabaa nin dhallinyaro oo aan inxiraaf iyo weecweecad lahayn. ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah. wiil dhallinyaro aan weecasho lahayn. waxaynu u baahannahay inaad noqotaan kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam 5 horteed ka faa'iidayso.
nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin caafimaadka ka faa'iiday intaanad xanuunsanin firaaqa fursadda ka faa'iidayso intaanad mashquulin dhallinyaranimada ka faa'iiday intaanad gaboobin waxhaysadka ka faa'iiday intaanad faqrinin su-aasha aakhire lagu weydiin doono ee ah war dhallinyaronimadaadii maxaad ku bixisay inaynu ka hortagnaa baynu u baahanay haddaba si aad waalidkaana uga farxisid oo qofku rajaynaya aad u noqotid aakhiradaadana aad u hagaajisatid adduunkaagana uu macno u yeesho bulshadaad la noosha inaad waxtar ku noqotid ilaan iyaba maal bay ku geliyeen iyo wanaag waxay kaa rajaynaya inaad waxtar noqoto bulshadaad la nooshahayna aanaad cib'un calayh qof ku culus noqonina waxtar aad u noqotid فعليكم بالعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم